qayb ka mid ah golaha wasiirada maamulka Hirshabelle ee garabka gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cusmaan Bare Maxamed ayaa maanta shir jaraa'id ay yeesheen waxa ay ku sheegeen in ay ku faraxsan yihiin isla markaana ay soo dhaweynayaan xilka qaadista qayb ka mid ah baarlamaanka Hirshabelle ay ku sameeyeen madaxweyne Cosoble waxa ayna tilmaameen in xilka qaadistani ay tahay mid cadaalad ah ku saleysan golaha wasiirada ee maamulka Hirshabelle garabka Sheekh Cusmaan Bare Maxamed ayaana waxa ay tilmaameen in haatan isbedel weyn laga dareemayo maamulka Hirshabelle waxa loo qabsoomay maamul goboleedka Hirshabelle fadhigi golaha wasiiraha isbuuclaha ama khamiis walba in la qabtay ahayd ayaa maanta ka qabsoomay magaalada madaxda maamul goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar waxaana gudoominayay madaxweynaha ku meel gaarka isla markaana madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka maamulka Hirshabelle waxaana shirka ka soo baxay go'aano ay ka mid yihiin kuwa soo socda goluhu waxa ay aydeen go'aankii dastuuriga ahaa ee xilka loo qaaday madaxweynihii hore Ali Cabdullaahi Cosoble goluhu waxay ugu baaqayaan dowladda dhexe ee federaalka iyo beesha caalamka in la raaco lana taageero go'aankii dastuuriga ahaa ee ay golaha baarlamaanka gaareen 14 bisha Agoosto 2017 goluhu waxay isku raaceen in loo diyaar garoobo doorashada madaxweynaha soo socda ee dowlad goboleedka magaalada Hirshabelle intaas ayaan soo koobayaa warshaafadeedkii maanta hadda oo aan ka soo baxnay shirkii golaha wasiirada oo ahaa markii labaad ee golaha wasiiro isku yimaadeen shir golaha wasiiro la qabto tan iyo oo ahaa kii labaad 6 bilood oo soo dhaafay waa kii labaad oo golaha wasiiro isku yimaadeen warbixin islaafsadaan wasiir walba wasiirka kale wuxuu qabtay ogaadaan waxay qabteen ay ku soo bandhig khilaafka siyaasadeedsan ee soo kala dhexgalay shanta mas'uul ee ugu waaweyn maamulka Hirshabelle ayaa waxa saameyntiisa laga dareemayaa guud ahaan deegaanada maamulka Hirshabelle waxaana cirka isku sii shareeraya isqabqabsiga madaxda maamulka Hirshabelle waxa lagu wadaa in magaalada Jowhar ay soo gaaraan guddi xaqiiq raadin kuwaasi oo ka imaan doona dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Fataax Zaki Bulsha TV Jowhar.